shirkii golaha xukuumadda dowladda Puntland uu shir gudoominayay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlayay arrimo kala ah amniga dalka soo dhaweynta guddiga iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya xeerkan wadamarista Puntland siyaasadda daryeelka dhalinyarada iyo warbixin kale golaha xukuumadda dowladda Puntland oo warbixin ka dhigaystay wasaaradda amniga ayaa sheegay in guud ahaan xaaladda amniga dalku gacan mugli ku jiro isla markaasna ay fashil ku dambeyn doonaan damaca liita ee maalgelinayaan qaswadayaasha ka soo horjeeda nabadda iyo wadajirka Puntland wuxuuna madaxweynaha dowladda Puntland faray laamaha ammaanka iyo ciidamada qalabka sida inay si weyn ugu diyaar garoobaan difaaca dalka iyo raacdaysiga cadawga qaawan ee damacaya kala dhantaalida nabadgelyada iyo horumarka wadajirka Puntland golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa dood dheer kadib ansixiyay xeerka wadamarista gaadiidka Puntland xeerkan ay soo diyaarisay wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland ayaa qeexaya cayminta hantida badqabka dadka iyo gaadiidka isla markaana la jaanqaadaya habka wadamarista casriga sidoo kale golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa meel mariyay siyaasadda da'yarta Puntland oo soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska siyaasaddan ayaa ugu gol xaaraysa baxnaaninta daryeelka iyo kobcinta carruurta Puntland ugu dambeyntii golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa warbixin ka dhigaystay wasaaradda ganacsiga Puntland oo ka warbixisay shir muhiim ah oo u dhaxeeyay Afrika iyo Turkiga shirkaas oo looga hadlayay iswaarsiga badeecadaha iyo fududeynta ganacsiga wuxuuna wasiirka ganacsigu sheegay inuu shirku wax ku ool u ahaa ganacsatada Puntland iyo Turkiga gaar ahaan dhoofinta kalluunka Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga SBS Garowe